إنه هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن دعوة ديال سدواد إن شاء الله إن سكسونا قد عن وحافلة إن محي هذا عبارة عن كلام مقنين إن وحندب وسيودنا إن شاء الله عشرة ووردبريس كها يو بي إتش بي دي وحلا متكها إن ما أنتو حنقادين 10 ووردبريس أو كوسابسن إن shan wordpress plugin oo ay muhiim tahay inaad isticmaashid macnaha markii la joogo ama maxay ahayd faa'iido badan u leedahay inaad isticmaashid si ay website-kaada u qurxisatid. dabcan ana hadda waa kana website-kan dabcan subdomain-kan hadda maxay ahayd wordpress ku shubay. wordpress-kan hadda waa pure waxba plugins ku jiro theme ku jiro marka ugu horeysa dabcan wordpress computer-kaada ku shubtid ama maxay ahayd domain live ku shubtid kan oo kale live waa macnaha ma fahantay ama domain live ku shubtid ama computer-kaada marka ugu horeysa wordpress ku shubtid waa shaashadiis waatana macnaha qaabkan uu leeyahay. soo marka doo ujeeda meeshan menu xitaa ma lahan oo page wax ma lahan footer wax ma lahan marka waxaan arkaynaa insha Allah cashirkan waxaan ku qaadanaynaa 5 plugino ay muhiim tahay ina isticmaashada website-kaada ay aad u qurux badnaadaan. waayahay plugin-ka ugu horeysa waxa waaye Elementor waaye. Elementor wuxuu naga saacidaa page builder marka waa arkaynaa insha Allah. marka si aan Elementor ugu shaqeeyo horta marka ugu horeysa waxaan galaa WordPress back-endigiisa galaa oo waxa leeyahay /wp jitin admin intaasaan galaa kadib wuxuu isoo saaraa mail oo username iyo password marka username aan gelina password kadib login عليه الصعد إن شاء الله أوكي. واي هاي ووردبريس باك إنديكس طبعا واقع أو واقنا قاب كان واي مركو حان لي هاي موسكا وحان كدول أدنا ماشان ماي بلوك قرنت هاي فيت سايد رايت كلي لكدب نيو تابا لي هاي ومحي هذا تاب وحان كفرنا تاب عصوان كفرنا معنا مركو واقنا هذا مركو حان سمينا مركو ورسفت لاي أو سيت كي لاي أوت كيسا ديارسنا وهاد ماشان سأوجد واحد لاي أوت ميد ديارسنا مركو حان سمينا إنو حان تاقا ديما كشوانا طبعا وحان تاقا ماشان قرنت appearance كدب حان لي ديمس marka ku dhufto kadib theme oo waxa isticmaalaa oo free isticmaalaa oo very quick saamaxay ahayd way waxyaabaha u socdaan plugins waa theme mu socdo laakiin waxaan rabaa layout ina ku saxdaa rabaa macnaha marka theme-kaas waxa loo yaqaanaa Astra meeshan oo search-ga waxaan ku qoranaa Astra waa kana oo isoo qabtay install aan leeyahay. okay marka theme-kana ku shubanaa theme-ka marka ku shubto kadib waa kana waa ugu shubmi ma sha Allah kadib waxa leeyahay activate aan leeyahay. okay activate marka dhaho hadda dan website-kayga u laabto aan refresh aan dhaho sa u jeedid wuu isbedel meeshan. okay meeshan u socdaa marka hadda meeshan page-kan munoo dhisna macnaha soo marka saan u dhisno waxa loo baahan yahay inaan ku shubno wax loo yaqaan page builder kaasna page builder badana jiraan dabcan Elementor jiro waxa jiro WP Bakery page builder mid ahaan waxa kale jiro Gutenberg waa badan yihiin laakiin midkooda the best-ga waa Elementor-ka. okay Elementor-ka marka plugin-ka ugu horeysan ka hadlay Elementor marka Elementor ku shubinayna insha Allah qaabka u shaqeeyno arkeenaa marka si aan ugu shubino meeshan waxa iimayna meeshan qoranta plugins kadib waxa leenahay add new marka dhan kadib inta waxaan ku qoranaa Elementor. okay waxaan leeyahay Elementor aan leeyahay Elementor marka waa kana oo isoo qabtay kadib waxa leeyahay install now waa ku shubana waa kana hadda ugu shubaya dabcan oo waa kana waa ku shubtay kadib waxa leeyahay activate aan leeyahay activate marka dhaho kadib activate marka dhaho already hadda jaa Elementor ugu shubaya laakiin si wili website-kayga waxba ma iska bedelin macnaha. okay waxba ma iska bedelin marka waxaan sameeynaa si aan idintu soo daawadayaal qaabku Elementor u shaqeeyo ardayay waxaan tagaa code horta waxaan sameeynaa page sa abuuranaa waxaan dul tagaa hadda page-kan hadda dabcan ay abuuran sample page ay abuuran ama sample page xitaa iska isticmaalo. okay pages kale u soo laayo sample page ka isticmaalo marka waxaan tagaa meeshan ay ku qoran tahay WordPress-ka meeshan ku qoran tahay settings meeshan ku qoran tahay read inaan tagaa ku dhufanaa read marka ku dhufto kadib home page-ka هذا latest post إيه هو post قدام بي عن سوق ليه home page كي نقول أساس مرة معنا home page كي وحاربة إنه page نقول مرك ماشي أنا حكي دورنا static page كده page ماشي أنا دورنا طبعا أنا هذا simple page لأي أبورن أو محي هذا page كلمة أول مرك simple page كسر فأنا كده بحاله save changes. okay مرك save changes هو هذا وكنا هذا فيريو post كي ماشي هو كبحة معنا أو page كي وره وحنا قنا هذا wuxuu noqonaa
page oo noqonaa macna home page ugu horeeyso. Okay, home page ugu horeeyo wuxuu noqonaa page. hadda waxaan tagaa marka meesha ay ku qoran tahay pages aan dul tagaa. pages marka dul tag kadib waxaan furanaa meesha ay ku qoran tahay sample page edit leh macna. okay, meesha sample page ku qoran tahay edit leeyahay. okay, meesha markaas aan ugu soo baxay kadib dabcan hadda kan blog editor waa iska xiraa. waxaan leeyahay marka meeshan soo fiiriyay marka ardayay waxaan rabaa meeshan hadda default template meesha san furanaa waxaan ka dhiganaa elementor full width waayo waxaan rabaa in uu geeska gees isku xiro macnaha uusan waxba geesahan waxba inuu ka banaanayno geeska gees iskugu xiro. update aan leeyahay haddaan u laabto refresh aan dhaho waxaan arkaysaa inuu full width inuu noo noqdo macnaha. hadda waxaan leeyahay marka waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay edit with elementor. okay, edit with elementor markaan dhaho elementor hadda page-kayga ugu furmaa macnaha. okay, elementor hadda ugu furmaa dabcan waxaa leeyahay continuous ka leeyahay activate container dabcan kan iska xir. okay, waa kana elementorka ugu furmay section cusub waa inaan kusoo darsado kan horta waa iska dilayda dabcan section kan iska dilayda kan xitaa waa iska xiraa. section cusub kusoo darsana waxaan ku dhufanaa meeshaan ku dhufanaa marka ku dhufta kadib elementor section ka dabcan hadda inta ku dhufanaa mar walba inta ku dhufatid meeshaan oo bidixdaada wuxuu ku soo qabanaa attribute ka waxyaalaha sameeyay macna boxed kan oo kala full width leeyahay oo waxaan rabaa in uu hero section ahaan inuu noqdo macnaha. okay, marka meeshaan marka hadda waxaan soo gashan karaa waxa rasmeys karaa macna waxaan soo gashan karaa sawiraan soo gashan karaa hadda inta ku dhufta hadda aan style aan dhaho maxay ahayd background tab inta ku soo dhifto image oo kale sawir oo kale waa soo gashan karaa laakiin aan hadda sawir ma ka gaar marka waxaan iska sameynaa color iska soo gelinaa waayo waxaan rabaa in qaabka loogu dhisaayo inaa idin tusaaro arday insha Allah waan u imaanayna asigoo si fiican loo sharxayo. okay, colorkan oo kale aan qaadano kadib marka la dan ku laabano layout ka dan ku laabano meesha high ay ku qoran tahay waxa fit screen dad waxa waa shaashada dhan ku weynaana macnaha laakiin sadaan min high dhahdid wuxuu sameeyna inta rabta ka dhigi kartaa joog ma jeedaa inta rabta ka dhigi kartaa. okay, intaan oo kale hadda dhahno inta marka waxa sameyn kartaa ina qoraal aad gashatid macnaha. okay, inta ina qoraal gashatid qoraalka dhexda keentid inta aad qortid tusaale ahaan oo kale waxa website u sameynaysaa qolo oo raashinka ka ganacsato oo dadku u geeyo food delivery website oo kale daadhan style leedahay meeshaan oo kale waxa ka bedeli kartaa colorka ka bedeli kartaa. okay, typography oo kale inta kale waxa ka sixi kartaa farta size-keeda iyo waxyaabahan dhan waxa idinku tusaa macnaha elementorka faa'iidada uu leeyahay macnaha. hadda marka update aan dhaho oo u laabano website-keen hadda u laabano hadda dabcan waa live runtii hadda u laabano hadda refresh aan dhahno waxa arkaynaa in uu isbedelka uu noo qaatay. okay, kan waxa rabaa dabcan inuu gees gaaro marka haddaan ku laabto inta ku dhufto. okay, full width dabcan waxyaabo badan iga dambeeyay. okay, المهم meesha u socdo waxay tahay elementorku dabcan wuxuu ka saacidaa in website-kaadu uu noqdo maxay ahayd uu qaab karto naqshaday karto dabcan waxa keensanay background kana keensanay qoraalkana keensanay marka plugins-ka u baahan yahay designer-ka web designer-ka ama wordpress designer-ka waxa koow ka ah elementor koow ka ah macnaha iyo inuu yaqaano qaababka kala duwan loo isticmaalo. okay, hadda meeshan structure aan dhahno hadda dabcan layout kana noo sameysan. okay, qaab kala duwan loo isticmaalo. okay, stretch section aan dhahay hadda stretch section aan dhahay oo inta jeeg saaray kulaawan hadda refresh aan dhahno. okay, hadda gees noo gaar macna qaabka rabin hadda noo noqday. okay, marka arday waxaan elementorku wuxuu ka saacidaa in website-kaadu uu maasha Allah noqdo maxay ahayd qaab karto design gareysi kartid. marka elementorku waa soo fahmnay waxaan hadda ka hadlaynaa insha Allah plugin-ka labaad oo aan yiraahdo
waaya pluginka labaad ee muhiim tahay ardayay inuu qofka web design WordPress designer uu ogaado ama wax uu ka ogaado ama uu website-kiisa ku dirsado waxaa loo yaqaanaa classic editor. Classic editor dabcan wuxuu ka saacidaa in maxay ahayd text editor-ka haddii website-kaada u baahatid in maxay ahayd aad si fudud u qori kartid wax walba. marka waa arkeena qaabka u shaqeeyo insha Allah meeshan oo muska wax ku dul aadana meeshan ay ku qoran tahay title-ka kadib dashboard-kan right click galay new tab leeyahay new tab marka inta igu formo kadib waxaan dul tagaa meeshan qoranta plugins kadib waxaa leeyahay add new. okay add new marka dhaho top 5 ka waa kana mujeda top 10 ka waa qaabka dhahan waa kana kan ugu horeeyo waayo classic editor ujeeda ilaa 5 milyan ku shubtay midka marka waxaa leeyahay install now. okay classic editor kaas ku shubana install now marka dhaho kadib waxaan leeyahay activate. okay classic editor kan waxyaabuhu tar marka idin tusaa marka insha Allah hadda tusaalahan kale hadaan dhaho tusaalahan kale hadda meesha ay qoranta all pages hadaan tago oo add new aan dhaho page cusub aan ku soo darsano tusaalahan kale qaabkan layout kan sidaan oo ah in inta title-ka inoo maraan iyo meeshan oo noo diyaarsamaan sidebar kan uu noo noqdo qaabka waxyaabahan oo dhan classic editor ka naga saacidahay macnaha oo hadaa la torsa u jeedin marka arday sample page ka sameeyeen waxaan dhamalin Soomaa ilan classic editor ka naga maqnaa marka salaano kale inta waxa dhigi karaa news kala dhigi karaa news page oo kale markaan u rabo inta daara waxa rabo ku qori karaa macnaha. okay waxa rabo ku qori karaa marka waxaan leeyahay publish aan leeyahay publish marka dhaho kadib hadda page kan oo kale hadaa inta fiiriyo refresh dhaho dabcan menu meeshan uu yaala macnaha menu-yada ma kala hore marka waxa sameyn karaa ina menu-ga habeeyo waxaan tagaa meeshan ku qoranta appearance kadib waxaan si tagaa menus markaan tago kadib menu-yada waa kana isoo kacay marka magaca uu bixina taano kale waxa leeyahay waxaan dhihi karaa main menu oo kala dhihi karaa oo waxaan dhihi karaa marka primary menu-ga ha aado create menu-ga hadda abuura macnaha oo ma ii sameysna marka pages ka ku soo dara meeshan view oo leeyahay hadda labadan page ay sameeysan waxaan dhihi karaa add menu meeshan marka sample page kan waa iska tiri karaa sample kiisa ku qor karaa home si oo igu noqdo maxay ahayd save menu aan leeyahay inta marka hadda refresh aan dhaho menu-yada qaabkaas ay noqdeen macnaha home iyo news qaabkaas ay noqdeen marka hadda news-ka daan click siiyo sa u jeedid waxba ma noo saar marka waxaan sameyn karaa inaan news-ka aan ka dhigo blog page aan ka dhigo macnaha waxaan dul tagaa settings waxaan ku sii dhufanaa reading marka ku sii dhufan kadib post page aan leeyahay news-ka doorana kadib waxaan leeyahay save changes post walba hadda aan sameeyo news-ku aada macnaha marka classic editor waxyaabuhu taraasi fiican idin tusaa hadda posts aan dhaho categories horta tagaa oo waxaan sameysnaa categories sameysnaa oo maxay ahayd salaano kale waxaan leeyahay wararka gudaha kale aan leeyahay add new category aan leeyahay. okay marka post soo sameysana waxaan leeyahay add new inta marka waxaan ku qoranaa postiga waxa aan ka rabo macnaha. okay waxaan ku qoraa postiga title-kiisa macnaha shir madaxeed lagu balansan yahay inuu ka dhaco Muqdisho marka saas oo kale u qoro inta waxaan ku qori karaa hadallo kale fara badan oo kale ku qori karaa. okay oo ugu talagalay daar sawir oo kale soo gashi karaa anyway meeshan u socdo waxay tahay category-ga door meesha u socdo marka waxay tahay hadda meeshan hadaan publish aan dhaho postiga dabcan inaan qaabkan oo ii diyaariyo meelahan ku waxaas oo dhan classic editor-kana igaaga saacida macnaha hadda classic editor-ka oo ku shubnaa lahayn maxay ahayd ma ii qabsoomi lahayn sa ujeeda hadda marka postiga hadda soo galaa waa kana shir madaxeed lagu balansan yahay wax noocaas oo kale marka classic editor-ka muhiimadaas uu leeyahay. plugin-ka labaad waa kaasa. plugin-ka saddexaad waxaa loo yaqaanaa essential add-ons dabcan waa idinka iloobay dhammaan shantan plugins as wada sheegay dhammaan waa wada free macnaha wax bayd ama lacag ay ku jiraan dhammaantooda waa free. okay marka plugin-ka saddexaad arab arday ina idin tuso waxaa loo yaqaanaa essential add-ons asigana elementor koola imaadaa oo dabcan elementor koola shaqeeyaa laakiinse
more functionality kusina macnaha okay more functionality kusina hadda daan u imaano hadaan plugins dhaha add new aan dhahno meesha hadda ku qorno kala essential add-ons oo kala daan qoro harkeena inuu pluginka dabcan noo soo baxayo waa kana essential add-ons for Elementor install now alaysa ujeedid ilaa 1 million ku shubta macnaha okay ku shubanayna kana wana u shumay kadib waxaan activate qaabka u shaqeeya idin tusaa marka insha Allah okay waxyaabahan oo kale waa advanced scale next waxyaabaha ugu muhiimsan asaabu ku shubayo oo wax ma iga rabo kaliya aan waa inaan next leeyo waa inaan iska dhaha macnaha oo waxyaabahan hadda waa waxyaabo iska bayd ah ma u baahnay next aan sii leeyahay no thanks aan leeyahay oo review iyo waqti mu hayo waa kana ugu shubay marka waxaan dul tagaa marka page builder ka dul tagaa hadda inta hadaan fiiriyo essential add-ons kama igu jiro macnaha oo ma soo gelin okay soo jin marka wuxuu rabaa inaan refresh aan dhuu rabaa macnaha si uu inta soo galo marka refresh aan leeyahay okay maadaama isbedel aan ku sameeyay dabcan wuxuu rabaa inuu isbedel ka qaato hadda daan fiiriyo marka isbedelka uu qaatay oo waa kana meeshaan noo soo galay waa kana essential add-ons marka meesha u socod arday waxay tahay waxaad ka helaysaa waxyaabo badan oo functionalities tusaalahaan oo kala hadda meeshaan oo kala accordions call to action oo kala call to action kan oo kala daan fiirino okay waxaan leeyahay mar walba waxaan isticmaalaa mid ka saddex section markii macaal wuxuu ku siinaa sectiono muhiim oo wuxuu ku siinaa oo kala go'an oo ku siinaa macnaha call to action kan oo kala daa idintu subaxa waaye sida call to action oo kala soo jiido oo inta dhex aan keeno okay inta marka daan spacer yar aan soo geliyo Elementor-ka dabcan isticmaalayaa insha Allah course dhameystiran waxa jirto sida Elementor oo website kala duwan loogu sameeyay aan diyaariyay ardayga u baahan koorsadaas si fiican u heli karaa okay meeshaan marka daan rabo waa edit gareey karaa ama ayagoo dhan waa iska dhaaf karaa marka meeshaan marka sida call to action waxa loogu talagalay in maxay ahayd hadal highlight macnaha in meeshaan loogu qoro tusaalahaan oo kale waxa dhigi kartaa get in touch oo kale adigu waxa loogu talagalay oo user-ka fiirinayo oo maxay ahayd oo waxa loogu talagalay user-ka soo jiidanayo macnaha oo keenay inuu badhankaas oo click siiyo oo ku dhufto marka waxaan ka wadaa badhanka kale meeshaan hadaan ku bedelo get started oo kale linkiga hadaan rabo inta gashan karaa waaba haduu link jiro waaye marka waxaan ka wadaa macnaha design fara badan oo ku sii karaa maxay ahayd essential add-onska oo Elementor-kaadu sii xoojina macnaha marka anigu Elementor page ama website ku diyaarinayo aad u isticmaala essential add-onska okay waxa kale oo jirta aad u isticmaala idin tusaa Flipbox kan oo kale hadda daan inta daan furo Flipbox kan oo kale daan fiiriyo inta dulgeeyo qaabkan oo noqday markuu hal xabiyo heleewa marka hadda inta hadda update aan dhaho waxa arkaysaa inuu maxay ahayd page-kayga uu design u qaatay macnaha inta kale inuu qaabkan oo noqday Flipbox-ka inuu qaabkan marka mouse ku dul aadiyo inuu san isku bedelayo marka essential add-onska waa very muhiim waayo design-kaadu wuxuu xoojinaa macnaha okay marka plugin-ka saddexaad essential add-onska waxyaabahan oo dhan mid fiiri insha Allah okay waa idinkii waqtigiina waaya plugin-ka afraad arday raba inaa idin tuso waxa loo yaqaan premium add-ons isagana waa sida essential add-ons kale oo Elementor kula socda laakiin se xogaa uu ka sii balaaran yahay waxyaabo waxa ku jiraan features dheeraad ku sii jiraan oo hadda u baahatid isticmaali kartid si uu website-kaada u noqdo mid design-kiisu masha Allah way marka meeshan search-ga waxaan ku qoraynaa premium add-ons kadib oo noo soo qabanaa waa kana حاليا install now okay waa ku shubinayna insha Allah kana noo shumi kadib حاليا activate okay sida hore amal u laabanayna dabcan inta hadda noo soo galay waxa leen refresh isbedelkan u qaato hadda kana refresh waan dhahay marka daan hadda fiiriyo essential add-ons gadaashiisa mara ama waaba kana premium add-ons mujida marka waxyaabo badan uu leeyahay macnaha waa asagana aad ka isticmaali kartaa tusaalahaan oo kale dan section cusub baxsado
counter kan oo kale markii aan maxay ahayd aan counter aan saxayo kale aan u isticmaalaa macnaha okay kan oo kale incrementigan iyo waxyaabahan uu ka saacidaa maxay ahayd size-ka iconka aad rabtid inuu noqdo qaabka aad rabtid inuu usoo baxo circle hadaa u rabtid iyo waxyaaba premium add-ons waxa waaye more functionality asiga ku siinaa sida essential add-ons oo kale macnaha oo website-kaada wuxuu ka dhigaa very responsive aday very design oo ka dhigaa macnaha mid aad u design garaysan gallery oo kale hadaa rabtid oo kale inaa keentid oo kale meedi gallerygaas soo jiidaysaa okay meel wuxuu ku tusinaa oo sawiradaada waxyaabahaada aad kusoo bandhigtid oo kale xitaa wuxuu ku tusaa sawirada aad soo dhiganaysid qaabka uu yahay macnaha haddii aad rabtid sawira caadi soo gashanaysa haduu yahay iyo wax noocaas oo kale marka haddaan hadda dhahno update aan ku laaban website-keena aan refresh aan dhahno waxaa arkaysaa premium add-ons inuu noogu jiro kana counterkii galleryga waa kana category 1 category 2 kanoo kale waxaa u isticmaalaa marka aan sheegaa macnaha kala projectiyada oo macmiilka soo qabta ama kale hore loo soo qabto kale aan qaybtan ku sheegaa macnaha badanaa qaybtan waxaa ku sheegaa inta qof uu adeego kale noocaas oo kale marka premium add-ons iyo essential add-ons ka waxay xoojinayaan elementarkaada xoojinayaan website-kaada waxay ka dhigayaan more designful ka dhigaan macnaha oo design fiican u sii yeelayaan waxaa loo maleynaa website-kaada theme aad soo iibsatay inuu yahay laakiin theme aad soo gadato maano waa adiga qurxusaday oo balaagino useful u isticmaashay marka laga faa'iideysto insha Allah premium add-ons okay kaas wuxuu noqonaynaa balaaginka afraad balaaginkeena shanaad ardayda raba inaa idin tuso u dambeeyo waxaa loo yaqaanaa jetpack loo yaqaanaa runtii asigana waa mid aad iyo aad muhiim u ah marka daan hadda fiirino balaagin sidaan tagno add new hadaan dhahno waa kana asin top wuxuu ku jiraa top 10 ku jira mujeda 5 milyan qof ku shubtay jetpackan waxyaabahan ku arko waxa kamid ah wuxuu leeyahay backup uu leeyahay security uu leeyahay features uu leeyahay aniga aad ku isticmaalo waxa kamid ah social media automatic uu leeyahay macnaheedu tusaalahaan oo kale hadaa rabtid postiyada website-kaada aad soo dhigtid hadaa rabtid inay social media hay automatic u aadaan tusaalahaan oo kale Facebook page oo kale hadaa rabtid inay toos u aadaan oo kale ama Twitter oo kale hadaa rabtid inay aadaan oo kale in aad ku xiri kartid macnaha okay jetpack features ka soo leeyahay macnaha inaad ku xiri kartid website-kaada inaad ku xiri kartid oo mar walba aad maxay ahayd aad soo dhigatid mar walba post aad samaysid in maxay ahayd oo mar walba post samaysid uu toos u aadayo social media marka waa kana sad upgrades dabcan xogaa way iska dheertaa oo steps badan yahay laakiin si waa very useful and reward waaye oo marka ugu horeysa soo gashid waxa ku dhufanaysaa meesha ku qoranta set up jetpack ku dhufanaysaa wuxuu ka rabaa inaa account access ka rabaa oo ama gmail-kaada ku gal ama account caadi ka sameyso wuxuu ku geynaa wordpress.com website-kaas ku geynaa marka waa very easy waaye oo maxay ahayd isticmaalkiisa marka shantaas plugin aan waxaan isleeyahay aad u faa'iido badan tahay macnaha intaan ka arko dabcan anigu waa 5 years experience aan leeyahay intaan ku guud jiro website-ka waa pluginska inta badan aan u isticmaalo macnaha markaan website aan dhisayo ama aan naqshadeynayo sameeynayo macnaha waa kuwa u isticmaal aan ka tagin waaye jetpack iyo elementor essential add-ons waa intooda ugu badan aan isticmaalo barkii maxaa yeelay badan anigu themes ma isticmaalo oo la soo iibiyay waayo macmiilka waxyaabaha u baahan yahay qaab oo sharaxan oo kugu sheego wuxuu ku leeyahay inuu sadaan noqdaan rabo qaabka sectionka inuu san noqdo marka theme aad soo iibsatay waxyaabaas ma ka helaysid macnaha oo waxyaabo iska complex ku jiro okay laakiin se waxyaabo oo hadii aad maxay ahayd adigu hadda saan oo kale essential add-ons ama premium essential add-ons ama premium add-ons oo kale adigu ku shubto adigu design garaysanaysid dabcan qaab karta wax u qorx kartaa client-ka qaabku ku qanacsan yahay macnaha waxyaabaha aan soo sheegun waa one responsive hadda daa maxay ahayd screen-ka ayray oo kale waxa arkaysaa in loo isticmaal ka responsive uu yahay okay jida inuu mobile responsive yahay macnaha uu shaashad walba uu fit ku yahay okay jetpack waa kana arday idin sheegay wuxuu rabaa ina account access laakiin waxa sameey kartaa ina google-kaada ku gashid ana hadda maray ina sad upgrade dabcan sad upgrade-tiisa xogaa waqti
aku baxay steps badan uu leeyahay anyway shantaas plugin aad faa'iido u leeyahay insha Allah muuqaalka save garesta sidoo kale subscribe ha lagu dadaalo iyo like-ga asharadan wax badan ay maxay ahayd wax ka tarayaan WordPress-ka iyo ardayda daneynaya marka like hala dhoo si uu dad badan u gaaro oo jecel inay WordPress-ka ay wax badan ay ka faa'iidaan sidoo kale channel-kan subscribe hala dhoo insha Allah aad u mahadsantiin